وانجعل غيد غشاديسي روحي ونفتيدي وقلبي قوة كودين يا غيب سيدي كوبت عندلي وكلام دبو جاليستان وقد تحتالي ينمع دفوان كولاي لما دوني دا لغونون يغوخي ما دير يا غير لحن برفاي لغو ما وغتمع كليل كدير ربي باي سوغو ديني تريعي ميلا ديفتين دايخي جلي عامر قدك كما درقاياني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما والله قيمها إيقايها له إيقا داونا يبرتان يوتيوب ككل يهي شكر موسى تالنتي جنال وحان إذن لا يهي حلو البوء الجوكتان يميل والبقو أتكونو شين دافها عالمك هايدين وعناضو إن شاء الله ومركلي يو ولاشين شكر دقن وإذين وضع برنامج عصب waxaanu ka hadlaynaa oo barnaamijkan rabaa inaan ku qaada dhigo oo kaga hadlo abuuro farxadaada sidee baad u abuuran kartaa farxad qof walba oo caalamka ku nool oo bani aadam ah wuxuu leeyahay waayo xun iyo waayo san wuxuu leeyahay xilli uu ku naaloonayo wanaag iyo farxad iyo dhanka kale xilli murugo nolosha adduunyada ayaana ka samaysan labadaas jaanib waa maraad faraxsan tahay oo aad farxad ku nooshahay iyo mar ay murugo kuu soo hoyatay nolosha adduunyada ayaa intaas ka samaysan haddaba daawadayaal qof walba oo nool waxa uu u baahan yahay inuu farxad helo sidee baad farxadda ku heli kartaa waa noocyo badan tahay farxadda qaabka loo helo waa mid waayaha iyo adduunyada iyo wacyiga aad ku jirto ay ku siiso markaa ay waqti kuu wacan aad ku jirto oo aad farxad ku hesho waa tan naturalka kuugu timaado farxaddaas oo si dabiiciya aad u hesho oo marna wax kaa farxiya ilmo yaraa kuu dhasho waad faraxday waad guursatay waad faraxday maxay ahayday habeenka aad ku leedahay adduunyada oo ah maalinta aad guursanayso rag ahaw ama dhadig ahaw macnaha waxaan ka wadaa lab ahaw ama dhadig ahaw maxay ahayday waxay ka mid tahay maalmahaaga farxadda xilliyada farxadda ku soo maraysa ayay ka mid tahay haddii qoyskaagii ama kii aad ka dhalatod ka soo jeedaa ahaado waalidka iyo walaalaha wax farxad leh ay ku soo kordhaan haddii ilmo aad adigu dhashay oo qaan gaaray oo iskuul dhigto uu iskuulkii maaragtay heerku markaas mar ay ka qalin jabiyo uu heer ka koreeyo u gudbo waa farxad kuu soo hoyatay waa farxadaha sida dabiiciga ah ku yimaado oo wax aad ku faraxsan tahay aad heshaa dhanka kale waxaa jira farxad la abuuran karo farxad la abuuran karo iyo murugo iyadana la abuuran karo labadaba waa jiraan niyadaada iyo qalbigaaga hadba sida aad maxay ahayday u hagto ayay farxadaaduna ku xiran tahay maalin walba soomaalida waxay raahyadeeda waxaa ka mid ah maalin walba gariir caddageed ma saarna maxaa loola jeedaa maalin walba عربتنا محيرة هذان كل يوم مش عيد مالين كست عيد معها مالين كستنا فرحت لما يستو لما نهيلو لكن بمشي اسكو جرتا noloshaada inta aad nooshahay haba noqoto in xilliyo adag ay ku soo maraan
qofka markay xilliyo adag uu ku jiro oo waqti adag oo noloshiisa ku adag ay macnaha uu ku jiro ama xilliyo murugo badan ay soo martay ama waalidkiisa uu waayay ama ilmakiisa uu waayay ama arrimo kaleeto oo asaga noloshiisa dib u dhac ku ah ay ku dhaceen marka uu ku jiro mar walba farxad ma helayo wuxuu ku qasban yahay murugadii inay ka muuqato ma dhahaayay waqti la murugaysan yahay ma jirto waa adduunyada nolosheeda ka mid ah inay isbarbar socoto farxadda iyo murugada ha ahaatee adigoo xataa xilli adag ku jira haddaanan markaas wax masiibo ahoo kugu dhacay aanay jirin waa ma geeri ama maaragtay wax adag ayna kugu dhicin oo macnaha ehelkiina ay ku dhicin ama qoyskaaga ayna dhinac uga dhicin waxaa jirta qofka bini aadanka ah xilli uu firfircooni isgelin karo oo uu farxad gacan ku samaysa uu asagu mathali karo ama uu samaysan karo iyo mar uu intuu sidii xayawaanka maxay ahaday xoolaha la dhaqdo oo kale markii neefku wax ka siihin ama uu xanuunsan yahay ama yadal hugtaa yadal hugsan yahay qami hugsan yahay meel iska fadhiyo ayaa jira qofka bini aadanka ah mar walba farxaddu waa qayb ka mid ah nolosha dhankeeda wanaagsan waxa fiican in aad yididiilo isgeliso walow ay kaa jajabanta ama dhaqaale xaggeeda kaaga jajabnaato ama si kale kaaga jajabnaato wax kaa nixiya oo murugo culus oo kugu habsatay maalintaas haddayna jirin waxa fiican inaad adigu muujiso farxad adiguna niyadaadu kor bay usoo kacaysaa mujtamaca kula noolna waxay dareemayaan mar walba qof faraxsan inaad tahay bini aadamku isku mid maaha qof baa maalin walba xanaaqsan oo gafuurka u kuusan yahay inuu maxay ahayd xanaaqsan yahay inuu faraxsan yahay aadan kala aqoonin qofna mar walba ood aragto ilaa waxyaabo cayiman oo dhibaato ah oo la dareemi karo qofka ay ku dhacaan oo masiibo ay ku dhacdo maahane ama cidu ka dhimato ama cidu aad uga xanuunsato maahane wuu iska dhoolla caddeeyaa oo waa qof oo mar walba smile ku jira smilekana caalamka lacag lama siisto niyadaaduna kor bay usoo kacaysaa maskaxdaadu kor bay u kacaysaa adigu maanta markaad guri intaad fadhido aad ku caajisto oo aadan maanta maaragtay aad caajis daraadis xataa laga yaabo inaadan qubaysanin amaadan jirka mayranin oo laga yaabo inaadan waxba qabsanin ood gurigaas ku xirxirnaato maalmaha noocaasoo kale aad tahay bini aadan aad tahay maalin aad si culays u dareemaysaa way jirtaa inta wahabka la yska qaado oo lasoo qubaysto oo dhar qurux badan la xirto oo bannaanka loo baxo ayaa farxad la doontaa xataa haddaadan haysan dhaqaale aada meelo intaad ku farfariisato aadan waxooga wax ku cuncunto amaad wax ku cabto waa la yska soo socdaa magaalada lasoo soo socdaa waxaa kaa kacaya culays badan niyadaadu waxay dareemaysaa farxaday dareemaysaa haddaad laakiin meeshii ay qoraxdu kuugu soo baxdo ay kuugu dhacdo xataa haddaadan shaqo lahayn waxaad noqonaysaa boring waxa ay yidhaahdaan afka qalad lagu yidhaahdo caajisaad dareemaysaa waxaad noqonaysaa qof ay ka jajaban tahay waxaad noqonaysaa qof niyaddii ay ka duunsan tahay ka jaban tahay waxaad noqonaysaa qof asaga dhan isku dhex dhacay oo inuu bukay inuu fiyow yahay inuu caafimaad qabaan la kala aqoonin marka fadlan waxaad abuuran kartaa nolol yar oo macaan oo farxad adigana ku gelisa niyadaadana kor u qaada niyadaada kor u qaada mar walba waxaan idinkula talinayaa dhalinyaro waxaan idinkula talinayaa inuu madaxiinu hoos noqon inuu kor ahaado inuu madaxiinu kor ahaado maxay tahay inuu madaxiinu kor ahaado inaad dhaqaale haysato maalin walba maaha maalin walba in wax ku farxad gelinaya aad aragta maaha maalmo murugaa ku soo maraya waxoogoo adoo kaa jajabanta oo dhinaca dhaqaaluhu si kaayaa ku soo maraysa adoo fikirro kale kugu jiraana ku soo maraysa adoo guriga aad ku noolayd iyo maaragtay deegaankaaga iyo qofkii aad la noolayd ama mujtamacii aad la noolayd ama qoyskaagii waxoogoo xurguf idin dhex taallaa ku soo maraysa adoo waxyaabo culays badan dareemaya ku soo maraysa laakiin laysma dhiibo weligaa ha isdhiibin raadi sidaad jawigaad ku jirto ee dunsan ee niyajabka ah ee aad niyajab dareemayso oo af soomaaligu waa noocii badan yaha waana lahjada badanna haddaan soomaali nahay yaa dhanka waqooyi ee soomaaliya waxaa la yidhaahdaa waan diiqadoonayaa qofku markuu ciriiri dareemayo niyadiisa uu ciriiri ka dareemayo oo ama arrin uu markaas ku jiro ha ahaato xaalad uu ku sugan yahay ha ahaato oo ku culus agtiisa
inuu siduu rabay nolosha ka haysan ha ahaato in dhaqaale xumo soo wajahda ha ahaato diiqadu waa ciriiri qalbiga ka yimaada dad ciriiri dareemayso dad wax dareemayso dad faqfaq iska dhigtood faxfax iska dhigtood istaabtood isnoolaysood labisatood labiska kan kuugu quruxda badan la xirato magaalada aad marto koob shaaha meel ka soo cabto haddaadan cabin xataa aad iska soo socsocoto asxaabtaada qof aad wadato xataa haddaad qof ku rafiiq noqdo aad weyso aad iska socotood labisatood sida ummadda jidka maraysa u ekaato ood socotood isnoolayso waxaa ku soo galaya nashaadkana naftaa u baahan noloshaa u baahan maskaxdaa u baahan qalbigaa u baahan weligaa ha isniyad jebinin xaalad walba ood ku sugan tahay ha isniyad jebinina niyadiina kor u qaada haddaad aragto in wax kaa qaldayna in wax si kaayina in culays ku haysto ha isdhiibin nolosha ha isu dhiibin marka aad ugu dhib badan tahay ood ugu ciriiri badan tahay ood ugu dhaqaala yar tahay oo aad yaabantood is leedahay allah ilaaha sanadkan waa lagu cabsadaa markan waa lagu cabsadaa aad is leedahay markaasaa farajku kuugu dhow yahay dhinac walboo laga haysto farajku markaasuu kuugu dhow yahay ha cabsan ciriiri ha dareemin haddaad dareento nolosha iyo ciriirigeeda iyo boorinkeeda ha isu dhiibin intaad iska tuurto heeryada culayska iyo ciriiriga abuuro maxay ahayd farxad abuuro waad heli kartaa waadna yeeli kartaa qof baa ilaahay kaa dhigay bini aadan baa tahay qofka bini aadanka wax aanu samayn karin ma laha ilaahay bini aadanka muxuu u karaameeyo uga duwa xayawaanka inay maskaxay ku fikiraan ay wax ku jaangooyaan ay leeyihiin hadhowna takliifta loo saaray oo lagula xisaabtamaya marka walaalayaal mar raba barnaamijkaygu inuu dheeraado ma jecli barnaamijyada dhaadheer oo maxay dadku ku caajisaan marka abuuro farxadaada adigu gacantaada noloshaada ku qabso yaa mahmaha soomaaliyada waxaa jirta dhahda naftaada hayso ama ha lagu haayo yaa naftaada qof bini aadan ha ku aaminin naftaada adigu hayso sutiga u qabo yaa adigu hayso sutiga u qabo hadday maalmo ciriiri iyo waqtiyo diiqadeed ay gasho isku day adoon isu dhiibin waxaasoo fikirka ku dheeraano diiqadii culayska ku dheeraano ciriiriga ku dheeraano inaad taboorinka iyo ciriiriga iyo wuxuu dhanba iska ilowdo aad xoogoo nashaad raadiso naftaada soo geliso isku day waad heli kartaa waadna yeeli kartaa waxaan idinkula dardaarmayaa waqti walbo adagoo idinka hor yimaad inaad intaad jiirtaan dhex martaan noloshiiniyo qurux badan aad kasoo saartaan marna aadan waayaha adduunka iyo ciriiriga adduunka dhex yaalla aadan isku dhiibin adduunyadu waa goob imtixaan maaha goob maaragtay mar walba raaxo noqonaysa ha ahaatee marna ha isdhiibin maalintay kuugu culays badan tahay ayaa farajku kuugu dhow yahay sidaas ogow daawade insha allahu tacaala dhalinyaro taasaan idinkula dardaarmayaa wixii saboot ah channelka subscribe-ka shareka aad la wadaagtiin saaxiibadiina like-ta dhinac walbaba idinkaan taageero idinkaga fadhiyaa insha allahu tacaala waana idinka helay already waa muuqataa taageeradiina waana rajaynayaa inaad meel wanaagsan channelka gaarsiin doontaan annaguna aan halkaan ay noqon doonto meel aan wax badan isku weydaarsano oon wax badan ku kala maxay ahayd ku kala faa'iidno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa tan iyo intaan barnaamijkan mid la nooc ah aan ku kulmi doono nabaadiinada eebbe ha ahaato korkiina nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye